horta kuwii hore u taageerayay iyo kuwan iminka taageerayaaba nimankaana waxaan leeyahay waar etoobiyadii hore maaha dadkii hore loo didsanayay ee lalahaa annakaydan xukunnay halkaa mara maaha geesi baa u dhashay etoobiya keliya umuu dhalane africa oo idil buu u dhashay ninkii garmaayo ay laadhin jiray maaragtay labadii nin ee walaalo ahaa Mengistu iyo Garmay Hayle Silaase doonay inay inqilaabaan labada mid ka midi ninkii jaamiciga ahaa ee John F Kennedy classmate-kiisa ahaa John F Kennedy kolkii dhimashadiisii loo sheegay wuxuu yidhi 1000 sannadood ee soo socda nin Afrikaan oo isaga la kalibari Afrika kama dhalanayo Soomaad garan maanta wuxuu taagan yahay heerkii la odhan lahaa nin maanta in kalibar kaale oo geesinimada leh oo ku dhaca leh oo Afrikaani qaaradan waa kowkii ka dhashay inuu dabadii inta ka dhalan doonta Allahu a'lam ya kolka dabeeto Soomaalida dadka wixii hor caawinaya ee wax dhintay kolbale uu soo noolay oo qabrigan ka soo baxay de isla yaaba baanu leen ya oo xaqiiqda ku soo noqda dadkiina iyo dalkiinana la socda oo wadaninimada waxay tahay iyo macnaheedu fahma xorriyadu carabtii barigii hore dagaalami jirtay waxay yiraahdeen waa geed oo kale geedkaasuna dhiig buu ku baxaa الحرية شجرة لا تنبت إلا بالدماء وهم كبحين وح كلبية ديق لورابية مويان الحرية دي وكاسو ديق بورابيين وصونوليين حرية دي إثيوبيا ما انت سغنت كل كائن إنه بالك قالوا أيان قبح